maamulka cisbitaalka weyn ee magaalada Boorama ayaa maanta kala wareegay 15 haamood oo oksijiin ah gabdho muxsiniin oo ku nool dalka Belgiumka waxaana haamahani oksijiin ugu deeqeen bukaanada ku jira cisbitaalka weyn ee magaalada Boorama iyadoo waqtigan si weyn loola tacaalayo caabuqa xanuunka coronavirus waxaana madasha deeqda oksijiinta lagu la wareegay goob joog ah mas'uuliyiinta cisbitaalka oo horkacaya agaasimaha guud ee cisbitaalka Dr. Aadan Ibraahim Liibaan waxaana ugu horeyn madasha ka hadashay Sahra Barkhad Geedi oo wakiil ka ah deeqdan kan aan joognaa waa dhakhtarkii Boorama waa meeshii naqaska bahalihii naqaska oo iyo haamihii naqaska oo ay soo iibiyeen gabdhaha reer Belgium ayaan ku wareejinaynaa agaasimaha Dr. Aadan ayaan ku wareejinaynaa waxaana naga gudoomaan biidnillaahi kariim waa kaasoo jazakumullahu khayran halkaad ka soo saarteena wax khayr leh Allah idinku bedelo saasaan isku ognahay wax tar iyo wax wada qabsi biidnillaahi kariim walaalahay salaamu alaykum wa rahmatullahi kalena agaasimaha guud ee cisbitaalka weyn ee magaalada Boorama ayaa ka mahad celiyay deeqdani say Sahra sheegtay waxaan dhex joognaa maanta cisbitaalka weyn ee magaalada Boorama halkii kaydka ama mashiinkii oksijiinta dhalinayay waxaan maanta kala wareegnay Sahra 15 haamood oo kuwii oksijiinta ah oo ay soo bixiyeen walaalaha ay sheegaysa ee Belgiumka joogay tiradoodu waa 15 xabo waxayna ugu tala galeen in loogu adeego dadweynaha isbitaalka weyn ku jira xilligan adag ee uu jiro xanuunkii safmarka ah ee COVID-19 baahi weyn loo qabay in isbitaalka laga caawiyo haamahaasi waxaan dhex joognaa waa mashiinkii oksijiinta dhalinayay waxa markaa ugu muhiimsan in dadka u mahad celino aan ilaahno ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro halkii aad ka soo saarteen badal khayr qaba Allah idinka siiyo dadkiini oo u baahnaabad wax tarteen xilli adag oo ay baahi jirto ayaa la soo gaadheen aad baad ugu mahadsantihiin waana 15 xabo oo ay soo iibiyeen walaalaha muxsiniintaasi 15 xabo waxa soo buuxiyay oo oksijiinta hadda way ku jirtaa waxaana iska kaashaday isbitaalka weyn iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka oo oksijiin salindaro ama haama ay soo buuxinaysay aan ku darnay 15 marka 15 xabo way buuxaan hadda oksijiintii waa ku jirta waxaana diyaar u yihiin in la isticmaalo waad mahadsantihiin jazakumullahu khayran